muuqaalka idin muuqda waa mid dhawaan dhalad ku ah wadadan waa sabaahay had iyo jeer loo dhibtooda helideeda waana natiijada ka timid quus iyo caalwaa laga joogay mushkilad ay wadadani gaarkeeda ula jiiftay mana aha mid kale ee waa qashinka iyo dhiiqada oo mar walba oo roobab mahiigaan ahy ka curtaan magaalada halkan ka dhiga biyodegeen aan keliya martigelin wasaqda iyo uskaga balse suuqyaraha intiisa kale ka xidha suuqa weyn ee bakaaraha dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay muuqaalka ka jira halkan wuxuu ahaa mid aad u ildaran kaas oo dhibaato caafimaad iyo mid go-doonba ku lahaa nolosha iyo dhaqdhaqaaqa ka jira suuqa dadka ku ganacsada suuqa xareed waxay dhibaato aan dhammaad lahayn u arkayeen qashinka iyo dhiiqada tuban laamiga kaas oo aan xil weyn la iska saarin hagaajintiisa waxaa aad u kala duwan muuqaalkii aan halkan ka qaaday 3 bilood ka hor iyo midka aan saake kasoo duubay farqiga u dhaxeeyana waa mid si weyn looga mahadcelin karo gaadiidka ayaa si kastaba awoodi kara inay adeegsadaan wadadan oo sanad ku dhow aysan dhicin in la dhex maro sidoo kale ganacsiyadii kale ee dhiiqada tuban laamiga awgiis aan awoodi karin inay howlgalaan ayaa hadda albaabada loo furay bajaajyada qaar oo awal dhinacyada laamiga kaga dhici jira suuqa intiisa kale hadda waxay si dhib yar ah u isticmaalayaan laamiga waxaa kale oo wadada dhinac taagan gaadiid waaweyn oo dejinaya xamuul iyo kuwo kale oo howlo nadaafadeed ka wada laamiga tani waa talaab runtii mudan in looga mahadnaqo cid walba oo gacan ku lahayd suuragelinteeda ha yeeshee waa hubaal la-aan la xiriirta inta uu sii jiri karo dhaqdhaqaaqa wadadan walaaca ugu weyn oo ay muujinayaan ganacsatada maamulka degmada howlwadaag iyo kan gobolka intuba uma muuqdaan kuwa jawaab degdeg ah ka bixiya dhibaatada ilaa laga rajo dhigo ama lala qabsado ku dul shaqaynta dhibaatada tan iyo sanadkii 2015 wadadan waxay caan ku ahayd inay biyuhu fariistaan mar walba oo roobab mahiigaan hay ka da-aan caasimadda dad badan waxay qabaan sida keliya oo lagu hubsan karo xal u helidda mushkiladda kusoo laablaabata halkan inay tahay dhismo adag oo lagu sameeyo laamiga oo sida muuqata u baahan in lala ekeysiiyo joogga labada isgoos ee howlwadaag iyo baar ubax haddiise aan qalqaalo loo sameynin xil iska saaridda dayactirka laamiga qashinka oo goor dambe laga qaado iyo biyaha oo looga dhuuqo tubooyinka ma damaanad qaadi doonaan dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka wadadan